isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub. Warbixintan waxa ay ku saabsan tahay 8 madaxweyne oo Afrikaan ah oo dhalay 8 madaxweyne oo iyaga bedelay. Sheekadan waxay xiriir la leedahay sida qofka Afrikaanka ah ugu matada kursiga. Afrikana safka hore waxay uga jirtaa wadamada ku sunta nidaamka kaliya-talisnimada. Haddaba haddii aan guda galno sheekada ku saabsan 8 madaxweyne ee dhalay 8 madaxweyne oo iyaga bedelay, waxaan ku bilaabaynaa ninka lagu magacaabo General Maxamed Idris Deby. Maxamed Idris Deby waa wiilka uu dhalay madaxweynihii hore ee dalka Chad kaas oo kursiga fadhiyay 1990 ilaa laga soo gaaray 2021 oo uu geeriyooday isagoo ku sugnaa furinta hore ee dagaalka xilli dagaalo ba'an ay dhex marayeen kooxaha mucaaradka ee dawladda waqooyiga Chad. isagoo 37 sano jir ah ayaa golaha militariga dalkaasi waxay u magacaabeen madaxweynaha ku meel gaarka ah ee Chad 10 bishii Oktoobar 2021. Maxamed ayaa mar waxa uu noqday taliyaha labaad ee militariga farigelinta waqooyiga Mali ee Fayta magacooda loo soo gaabiyo. Sidoo kale waxa uu mar mas'uul ka ahaa madaxtooyada 18 bilood ka hor doorashooyinkii guud ee dalka Chad. Waxa uu door muhiim ah ka qaatay xaqiijinta amniga xilliga lixaad ee doorashada aabihii. 2021 ayuu kursiga ku fariistay haddana waa madaxweynaha dalka Chad isagoo 40 sano jir ah. Sidoo kale aabihii kaliya kalama wareegan kursiga. waxa kale oo ka dhaxlay badinta xaasaska oo saddex xaasle. Marwada koobaad waxa uu ka dhigay la taliyaha dhinaca warbaahinta ee xafiiskiisa waxaana lagu magacaabaa Dahabayo Cumar Sunni. Dahabayo waa gabar wariyaha 1992 ayay ku dhalatay caasimadda dalka Chad ee N'Djamena. Sheekadeeda kale ee qarsoon waxa ay tahay in Dahabayo iyaduna hooyadeed ay kala wareegtay marwada koobaad ee dalka Chad. waxay iyada dhalay marwadii koobaad ee madaxweynihii hore ee dalkaasi Chad Idris Deby. Marwahinda oo madaxweynuhu uu guursaday iyadoo wadata gabadhan iyada ayaana hooyadeed bedeshay. Marka laga hadlayo marwada koobaad ee dalka Chad, hooyadeed waxa lagu magacaabaa Hind Deby. waxay ahayd xaaska koobaad ee madaxweynihii geeriyooday ee Idris Deby. marna waxa ay noqotay marwada koobaad ee ururka midowga Afrika January 2016 ilaa laga soo gaaray January 2017. Hinda waxay dhalatay 1980 taas oo ka dhigan in gabadheeda ay ka weyn tahay 12 sano oo kaliya sida ku cad taariikhdeeda dhalashada. waxaan ku xijinaynaa wiilka uu dhalay madaxweynihii hore ee dalka Togo Faure Gnassingbe oo hadda ah madaxweynaha Togo. xukunka waxa uu kala wareegay aabihiis General Ejadama oo kursiga fadhiyay 1967 ilaa laga soo gaaray 2005 markaas oo uu geeriyooday. aabihiis General Ejadama ayaa waxa uu xukunka ku qabsaday afgembi military. wax yar ka hor geeridii aabihiis waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda macdanta, boostada iyo isgaarsiinta ee dalka Togo. Faure Gnassingbe ayaa waxa uu noqday madaxweynaha Togo isagoo bedelay aabihiis General Ejadama kadib geeridiisii Febraayo 2005. 4 sano kadib geeridii aabihii 2009 waxa uu xabsiga dhigay walaalkii ka weyn Kibaja Gnassingbe oo ahaa wasiirka difaaca Togo. uu ka qaaday inuu maleegayo afgembi military oo ka dhana xukunkiisa. afafka hore ee safaaradda Mareykanka ay ku leedahay Togo ayaa laga qabtay isagoo magangalyo doona. sanad uu xabsiga ku qaatay kadib maxkamad ciidan oo ku taala magaalada caasimadda ah ee Lomé ayaa waxa ay ku xukuntay 20 sano oo xabsi ah. ilaa iyo haddana walaalkii waxa uu qaadanayaa 20 sano oo xabsi ah. iyadoo la soo wariyay in dhowr mar oo hore uu ku xanuunsanayo xabsiga haddana dhag jalaq uma siin. walaalkii ka yar Faure Gnassingbe waxa uu ku raaxaysanayaa kursiga oo dhowr mar uu ku laalaabtay sifo aan sharci ahayn iyo doorashooyin mucaaradku dibadjoog ka yihiin. January sanadkan ayaa la qorsheynayay in dadka reer Togo ay u dareeraan doorashooyinka guud ee dalkaasi. haddana ma uusan qaban Mr. Gnassingbe doorashooyinkaasi. waxa uu Togo ku joogaa 5 bilood oo extension ay la xisaabtan la'aan.